daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaban oo aynu ku eegi doono allaha u naxariistay Dr. Khalif Galaydh oo ku geeriyooday wadankaasi Itoobiya. su'aalo fara badan ayaa la iska weydiinayay dhimashada dhiktoorka. marxuumka ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga, taasoo dhalisay shaki fara badan maadaama oo magaalada Jigjiga ay hore ugu geeriyoodeen mas'uuliyiin iyo shakhsiyaad magac ku dhexlay bulshada Soomaalida. horta aynu yar dul istaagno waa kuma Dr. Khalif Galaydh. Cali waxa uu ku dhashay 1941 magaalada Laascaanood. waxa waxbarashada heerkeedii koowaad ku qaatay magaalada Laascaanood, halka uu heerkii labaadna uu ku qaatay magaalada Sheekh. waxa waxbarashada heerkeedii jaamacadeed uu ku qaatay wadankaasi Mareykanka. Cali waxa uu ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed isagoo waxbarashada ka gaaray PhD. sidoo kale waxa uu ahaa macallin isagoo wax ka dhigi jiray jaamacadaha ku yaala wadankaasi Mareykanka. waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Soomaaliya. siyaasigan Soomaaliyeed ayaa waxa uu 2000 ilaa 2001 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha 1965 ilaa 1967, wasiirka warshadaha 1980 ilaa 1982 ee xukuumaddii kacaankii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. 2014 ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo aanay dawladdii ku meel gaadhka ahayd ee Soomaaliya aanay aqoonsan. Cali waxa uu dadaal iyo juhdi badan ku bixiyay inuu helo maamul u gaar ah gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ka madax bannaanadaan Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo iyagu midba midka kale ka xigsanayo labada gobol. Cali waxa uu markii dambe u heshiis rasmi ah la galay xukuumadda Somaliland oo markaasi uu hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. heshiiskaasi oo ka dhacay magaalada Caynaba. marxuumka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa caasimadda Somaliland ee Hargeysa. waxa uu 20 Sebtembar safar ku tagay magaalada Togo Jaale isagoo halkaasi salaadiinta Jigjiga ay isku raaceen magaalada Jigjiga. dhowr maalmood kadibna waxa qadashada fu sameeyay Onalaf. sidoo kale waxa uu 2 Oktoobar wareysigiisa u dambeeyay siiyay TV-ga Nabad TV oo ah TV ka madax bannaan maamulka dawlad deegaaneedka Soomaalida Itoobiya. 5 Oktoobar ayaa waxa soo baxay warar sheegaya inuu Dr. Cali xanuun ku soo booday kuna buko qolkii uu ka degnaa hoteelka, iyagoo dhanka kale ay soo bixeen warar sheegaya inuu ku simoobay cunto uu cunay. 3 cisho oo uu ku silcaayay qolkii uu ka degnaa hoteelka, weliba isagoo codsanaya in laga saaro, ayaa waxay tii alla u timid 8 Oktoobar. galabnimadii maalintaasi ayuu madaxweyne Cagjar uu amar ku bixiyay in la geeyo meydka qaryandhoodaan. dhakhtar ka tirsan deegaanka ayaa sheegay inuu COVID-19 u geeriyooday marxuumku. maalin kadibna dhakhtarkii daweynaya Cali ayaa beeniyay inuu u dhintay COVID-19. magaaladan Jigjiga ayaa waxaa si kadis ah ugu geeriyooday mas'uuliyiin iyo dad ku qaali ah bulshada Soomaalida. waxaase bulshada Soomaalidu ay shaki weyn ka qabaan inay jirto qorshe lagu gumaadayo shakhsiyaadka muhiimka u ah bulshada Soomaalida. qorshahaas oo ay farta ku gudayaan inay ka dambayso Itoobiya.